Gibiley laba qof ayaa mindi lagu dilay muddo ku siman 48 saacadood. Qofka koowaad maalinimadii shalay ayaa la dilay isaga oo waliba la sheegay in ruux kale oo kamid ahaa dadka deegaanka dilka uu u geystay, halka qofka kalena isla daqiiqada ka hor lagu dilay gudaha magaaladaasi Gibiley ee Somaliland. Soo dhawaada wararka ugu dambeeyay ee halkaas ka imaanaya ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa. Cumar Guuxayaan nahay haddii uu muuqaalka idin soo gaaro shir gaar saxibadana la sii wadaaga qaybta faallada ugu duceeya Allah u naxariistee labadan ruux oo kamid ahaa dadka deegaanka sida la sheegayna ilaa hadda dadkii dilay iyo sababta ay u dileen aanan la ogeyn. aynu ku bilownay maalinimadii shalay waxaa dhacay dil aad u fool xun oo loo geystay mid kamid ah dadka deegaanka ee gobolka Gibiley ee Somaliland, waxaana halkaas lagu dilay Allah u naxariistee mid kamid ah dadka deegaanka oo la sheegay inuu sababsaday gacanta isla qof kale oo isagana shakhsiyaadka halkaasi sida weyn looga yaqaan kamid ahaa. waxaana la tilmaamay in markii dhowr mindi uu kaga dhuftay qeybaha sare ee jirkiisa uu halkaasi ku geeriyooday loona qaaday xarumaha caafimaad si degdeg ah si uu daawo u helo, laakiin ay suuro geli weysay oo halkaas nafta ay ku daysay. isla maanta daqiiqada ka hor waxaa la soo wariyay dhacdo kale oo aad u xanuun badan kadib markii nin la sheegay inuu da ahaa oo dadka qaarkiis ay sheegayaan in uu dhexdhexaad ahaa, mindi lagu dhuftay oo waliba dhowr xabo ah loona qaaday cisbitaalka weyn ee magaalada Gibiley ee Somaliland, waxaana la sheegay in halkaas markii dambe uu ku geeriyooday. laakiin ciidamada booliiska ee magaalada ayaa howlgallo kala duwan kusoo qabtay labadaasi gacan ku dhigla ah ee gacanta lagu soo dhigay oo hadda ku jira baaritaano, sidoo kalena la doonayo in sharciga la soo hor istaajiyo daqiiqadaha ilaa saacadaha soo aadan ama maalmaha soo aadan. Gibiley 48 saacadood gudahood waxa ka dhacay laba dil oo dadka deegaanku si weyn ay ula yaabeen. dhaqaatiirta cisbitaalka weyn ee magaalada ayaana xaqiijiyay labada dilba iyo dadkan in ay u geeriyoodeen mindiyaha si dhowrka ahaa ee looga dhuftay qeybaha sare ee jirkooda. guud ahaan Somaliland marka la fiiriyo 48 saacadood dilalka guud waxa ay ka yihiin 4 dil oo qeybtood dadka dhintay lagu dilay xabad, halka kuwa kalena mindiyo lagu dilay. ma jirto ilaa hadda war rasmi ah oo ka soo baxay booliiska oo ay kaga hadlayaan arrintan ama dhacdooyinkan iyo waxa sababay in dadkan dil inta ay soo qaataan mindi ay dil u geystaan dadkan kale ama shakhsiyaadkan kale oo iyagan Allah u naxariistee u geeriyooday dhaawacyo xoogan oo ka soo gaaray mindiyahaasi. qaybta hoose ee faallada ugu duceeya Allah u naxariista dadkaasi guud ahaantoodba waxay ku geeriyoodeen gacan ka xaq daran, iyadoona dadka deegaanka xilligan ay ka walacsan yihiin xaaladda magaaladaas oo maalinta ka dambeysa ay ka soo kordhayso dhacdooyin aanan la mahdeen, sidoo kalena maqalka dhigaha dadka Soomaaliyeed ee magaaladaasi Gibiley ku sugan ay aad u dhibsadeen. waxaana jirta in howlgallo ay socdaan oo lagu baadigoobayo sababaha iyo cidda ama dadka ka dambeeya dilalka noocaasi oo kale ah. wixii ku soo kordha barnaamijyadeen wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa.